tababarkan oo la wacyi geliyay dadka beeraleyda ka nool gobolka Bay yaa waliba la ka qowday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tababarkan oo yahay qaban qaabiyeen wasaaradda beero iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay'adda USAID geele waliba socdo doona muddo lama maalmood waliba la ka barada doona sidii loo horseedan lahaay ayaha iyo waliyaabo kale la hal maal oo iyo sameeyaan beero inka horeen waliba tababarka ku hadlay haana kuumada iskaashatooyinka beeraleyda Koonfur Galbeed 80 ilaa 90 ukun meesha xilliga oo kuleelaha jiro ukunta beerta ay u tagaysa wax yar biyo roob ama waraab dadasiisa beertaas waxay ukuntaas way dilaacaysa saan ugu hortagno anyaxaas waxaan nala haboon in aan isticmaalno siman iyo waxaas oo kale inaan ka faa'iidaystana waa fursadaan aan ugu hadlo saafiko ugu horeen marka aniga daaskeena baro magacayga waa Luul Xasan Maxamed waxaan ka socdaa waxaan ahay maamulaha iskaashatada saafiko hadii aan taageer nagsiyo saafiko waxa la aasaasay 2009 sanadka markuu 2009 Amina Usman oo ku socotay hay'adda USAID qabiira dhinaga ka takhasusi beero yaa waliba ya sharaxday muhiimada tababarku in leeyahay dadka beeraleyda geel USAID hadaf ugu weyn ee la helay xilligan deerta oo hadda aan ku guda jirno waxay ahayd ilaa 3,000 oo beeraley ah in la taageero oo lagu taageero abuur tayo leh waa ogahay wax ku filan oo wada gaari kara dadka dhan oo beeraleyda oo Bay Bakool degan maahan laakiin waxay wax tijaabo ah inay bartaan oo abuurka tayada leh ahmiyad oo leeyahay 3,000 oo beeraley ah waxa ka sii rabnay inay gaaraan ilaa 3,000 oo hektar oo dhul ah inay beertaan sida wad ogtiin hore waxa loo bixiyay masago galey iyo digir galeedii digirtu wax yar oo kooban ay ahaayeen oo laga rabo in wax in lagu tijaabiyo xaalad waxa dhacday oo marka xaalado dabiici oo dhacaan jiro oo aan lagu bishaneynin ay kamid yihiin abaaraha ay kamid yihiin roob la'aanta ay kamid yihiin cayaanada sidaan oo kale todo ayahay oo kamid yahay xilliga hore gobolada adu waa loo kala badnaa laakiin ayax waxa jiray oo saameyn badan oo gurguray oo ku yeeshay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa waqooyiga Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya dhan soo wada gaar Bay Bakool markii la joogo waxa kamid ahayd meelaha ugu yar oo saameynta ugu yar oo ku yeeshay marka loo fiiriyo gobolada kale laakiin wali wixii yaraayo yimaaday waxay ahaayeen jiil oo maxaa la dhahaa oo da' oo aan saameyn badan iyo culays badan aan gaarsiin karin xaaladaas lagu jiro laakiin waxa ugu weyn oo laga baqayo waxay tahay jiilkaas oo shalay yimaaday oo waaweynaa oo daada ahaa waxay mar walba ka tagaan waxa waaye ukumaha waa naqaan cayaanada ukumaha ay ka tagaan waxay noqdaan hadhow jiilka kale tood ee habka ay ku tarbaan waa jiilka kale tood xigay noqdaan maadaama anaga geel ahaan targetkeena ama hadafkeena ahaa inaan gaarno maxaa ahaa dadkaas beeraleyda inay ka faa'iideystaan wax soo saarka kor loo qaado abuurka tayada leh ahmiyadiisa la ogaado waxa guuldarano ah in abuurka wixii shaqadii la qabtay inay maxaa lahaa ay ku dhamaato inay wax faa'iido laga gaaro sida daraadeed waxa tababarkan iyo maxaa lahaa ra'yigiisa iyo maxaa lahaa ahmiyad ugu weyn oo loo sameeyay tababarka taas ay ahayd Abdullahi Hassan Sidow agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo furay tababarka yaa waliba ka dheeraday muhiimada tababarka in la beeraleyda usoo kala dardaaramay ku qaybgalayaalka tababarka inay ku faa'iideeyaan tababarka reedna kala nagadaan beerajo la suubiyay maalgelin oo beeraleyda suubi beeraleyda sayti maalgelinta suubi mid beeraleyda meelon kulmo saasoo kale may bahareen suubinay tababaro oo ku saabsan meel raayis la dagaalanka ayaha oo kaaladaan geel USAID tan may kumid dadaaladii oo wasaaradda ku biyaas sidii lan taakuleeyfadii beeraleyda iyo ayahan la dagaalan faday marka may jira insha Allah beeraleyda intii iyo iskatiirsanada suubiyaan meel raayis iskaashi dhab mafadaan iskaashi intii sunada oo meel raayis kalan conflict iyo waxyaabo badan oo qabiilaysi iyo kasaraysan mafadaan oo tacaawun ala birri wa taqwa wala tacaawun ala ithmi wal udwan intii sin meel raayis kaalatan sidii oo beeraleyda ka ankeer oo ka dhaqaaliya oo hataan haysan yeembada sislan ka wafadi kan haysada makiinada siison caawi fadi kan yar marka may jeelna insha Allah beeraleyda intii iskaalmayaan inay naxariisadaan walbana isla qabadaan garab muhiim ay diyaar ananteen garab istaan oo hada festival ama oo hada fadi maal gashi oo hada fadi wal kasta oo technical ah wasaaradda may teegan tan caawin
ama support nasuubida meel raas beeraleyda meel kasta ku sugan koonfur galbeed insha Allah aydeeda ma sintiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh intaas ku reed dadka beeraleyda oo lan qowday tababarka iyo wali ballan qeybiyay qalab la ka buufiyo beero iyo sidii lanku korseeda lahay ayaa iyo waliyaabo kale oo baabi'iyo abuurka yar yar Ibrahim Xasan Ali warbaahinta dawladda koonfur galbeed Baydhabo